Ladies and gentlemen, it's an honor to welcome you all to the inaugural meeting of this Somali Partnership Forum. mudanayaal iyo marweyn waxaa sharaf weyn ah inaan dhammaantiin idinku soo dhaweeyo furitaanka sirka iskaashiga Soomaaliya kaasoo ka dhacaya magaalada taariikhiga ah ee Muqdisho magaaladaas oo ah halka uu ka dhaqaaqo dhaqaalaha iyo dhaqanka taariikhiga ee Soomaaliyeed markaan dib ugu noqono qarnigii 7aad waa magaalo ilaa hadda ku socota inay noqoto marinka ugu muhiimsan ee ganacsiga geeska Afrika bariga dhexe iyo wax ka sii dambeeya waa caasimada dal ku faanaya gobonimadiisa iyo taariikhdiisa inuu u sameeyo si gaar ah and independence in forging its own path. Your Excellencies, ladies and gentlemen, mudanayaal iyo marweyn soddonkii sano ee ugu dambeeyay dalka iyo shacabka Soomaaliyeed waxyaabaha la degay waxay ahaayeen kala qaybsanaan amni darro iyo maamul xumo laakiin qaranka Soomaaliyeed waa mid adkaysi leh haddana waxa uu ku socdaa wadadii soo kabashada waxaanu nahay qaran adkaysi leh ummad go'aan iyo shaqo adag u haya dalkooda taasina shaki uguma jiro inta xarun ku leh halkan oo Muqdisho nala degan waxaan dareensanahay caqabadaha dhaqaale ammaan iyo midka bulsho ee haysta balse awoodda ganacsatada Soomaaliyeed waa koraysaa iyadoo ay jiraan jawi ganacsi oo aad u liita taasoo ka dhalatay hoggaan xumida uu dalku ku jiray sanadihii la soo dhaafay balse shacabka Soomaaliyeed kaga soo gudbay adkaysi iyo dhiiranaan the ability of Somali businesses to thrive despite the harsh economic environment as a result of poor governance over the last decades. It's testament to resilience and ingenuity of the Somali people. With the reach of our goal with our global diaspora and the return of many highly educated soo laabashada qurba joogta Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada xirfad-yaqaanka ah waxay cadeynaysaa inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay go'aansadeen mustaqbalka ummadooda maadaama ay ka yihiin bulshada 75% guud ahaan waxay taasi xoojinaysaa in Soomaaliya mustaqbal ifaya u bariyay mudanayaal iyo marweyn xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay si buuxda u ogtahay inay saaran yihiin shaqooyin muhiim ah oo degdeg ah in loo fuliyo ay tahay sidaas si la mid ahna waa muhiim in beesha caalamka ay wacyigooda geliyaan in xukuumadda federaalka ee Soomaaliyeed waxyaabaha u qabsoomay 6 bilood ee la soo dhaafay wax badan oo kamid ah inay ku fuleen taageeradiina iyo garab istaagiina waxaan xafiiska qabanay 8 bilood ka hor ilaa waqtigaas waxaan bilownay ama xaqiijinay wax badan oo dib u hagaajina waxaan qorsheynay jadwal 6 bilood la balse ajandaha muhiimka ah ee ilaa hadda waxaan baarlamaanka ansixiyay sharciyadii ugu badneed ee la horgeeyay waxay leeyihiin 15 sharci 10 kamid ah waa qabyo waxa sharciyadaas kamid ah sharciga isgaarsiinta sharciga la dagaalanka musuqa sharciga maamulka maaliyadda dawladda iyo sharciga la dagaalanka argagixisada kuwaasoo dhammaantood aasaas u noqonaya 3 tiir ee maamulkayaga kuwaasoo ah daafurnaan dhaqaale ururinta dakhliga gudaha ammaanka iyo yareynta saboolnimada that are all foundation for the 3 pillars of our administrations, namely anti-corruption and economic transparency, security and reduce poverty, as well as military pension in order to ensure Somalia once again holds its sacred covenant with a veteran of our armed force who pledged and were prepared to pay the ultimate sacrifice to keep our nation safe. Your Excellencies, ladies and gentlemen, mudanayaal iyo marweyn si kastaba ahaatee tani waa qayb ka mid ah istiraatiijiyadayada wax shaki ahna noogama jiran sidii ay nooga go'an tahay inaan u fulino rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ah inuu ka tago talada hab qabiil inuu ku qaybsado una guuro hab dimuqraadi ah
oo leh matalaad dhab ah la islana xisaabtami karo si taas aan u xaqiijino waxaan bilownay tallaabooyin aragti fog leh si loo xaqiijiyo xasilooni siyaasadeed oo muddo dheer waarta iyadoo looga sii gudbayo horay loona samayn doono dib u eegis dastuurka qaranka oo dhammaystiran taas oo adkeynaysa aas-aaska dhismaha hannaan sharci ah oo adag oo ka shaqeeya danta shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan garowsanahay in doorashada hal qof iyo hal cod ay sal u tahay siyaasadda guud ee Soomaaliya waxa kaloo jirta in la isku raaco waxyaabo badan waxaan hadda bilaabaynaa la tashiyo ku saabsan qaabka matalaadda ugu habboon ee doorashada annagoo kaashanayna hay-adaha aan wada shaqeyno oo xubinta ka ah dowladda federaalka ah si loo xaqiijiyo doorasho guud oo dhacda 2020 and constituency with our institutions and our partners in the federal member states to achieve universal suffrage in 2020. This will be the cornerstone. taasina waxay u dibdhaxaad u tahay damaanad qaadka xasilooni siyaasadeed iyo sharciyad xoog badan oo hesho xukuumaddeena qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay qaabka kale oo aas-aas u ah xoojinta iyo deganaanshaha siyaasadeed ee dalka waa awoodda aan u leenahay inaan hormarino nidaamka maamulka ee federaalka ee nagu habboon waana sababta aan u galnay heshiisyo is-afgarada oo muujinaya dowrka iyo mas'uuliyaadka kala duwan ee dadka ku lugta leh si dib u eegis iyo dhammaystir loogu sameeyo dastuurka si kastaba ahaatee waxaan dardar gelinaynaa xiriirka iyo wada shaqaynta aan la leenahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka However, at a more practical level, we will seek to enhance the effectiveness of the communication and coordination between federal member states and the federal government. For the sake of clarity, haddii aan intaas ka sii caddeeyo iyo ogolaada inaan mar kale idiin xaqiijiyo in federaaliyiinta dalku naga go'an tahay waxaan aaminsanahay oon idiin xaqiijinaynaa in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ay muhiim u yihiin si loo helo maamul baahsan iyo matalaad dhab ah waxaa taas tusaale kuugu filan in dowladda federaalku ay ka ciyaartay kaalin muhiim ah oo dhexdhexaadineed heshiiskii ay wada gaareen dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca si kasta ahaatee waxaan ballan qaadaynaa inaan si siman u gudano xuquuqda uu na siiyey dastuurka ku-meel gaarka ah xuquuqdaas iyo midda ay leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalku waxay kaalin aas-aas ah ku leedahay dib u taagidda dowlad siyaasad ahaan dhisan xaqiijinta arrintaasna waa mid ka mid ah caqabadaha na horyaalla oo aan xalkooda xaqiijin doono sidaas awgeed waa in habka federaalku xaqiijiya qarannimadeenna iyo in aan dooranno siyaasado ku habboon dalkeenna si aan u helno nabadgelyo buuxda barwaaqo midnimo iyo xasilooni daba dheer oo uu qaranku helo maamulidda iyo qaab dhismeedka cusub ee wasaaradda amniga gudaha aas-aaska golaha wasiirada amniga gudaha golaha taliyaasha booliiska iyo kooxo farsamo oo la shaqeeya booliska qaranka waxay tusaale u tahay sida ay uga go'an tahay hay-adaha amniga heer federaal iyo mid dowlad goboleed inaan la dagaalano si wada jira halka cadow ee aan leenahay waxaana aaminsanahay in maamulka la daadajiyo ilaa heer degmo waxaan sidoo kale ka dharagsannahay in hagaajinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ay wax badan ka tarayso nolosha shacabka guud ahaan diyaarinta adeegyada aasaasiga ee ah bulshada iskuullada daryeelka caafimaadka iyo abuurista shaqooyinku waxaan shaki ku jirin inay ka qayb qaadanayaan xasilooni siyaasadeed ee dalka uu helo waana sababta keentay in maamulka iyagu muhiimad gooniya siiyo dib u qaabaynta maamulka maaliyadda dowladda sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan idiin sheego 3 meelood 2 meel barnaamijkii labaad ee dabagelista hay-adaha lacagta adduunka ay ku samaysay xarumaha dowladda waxaan rajaynayaa inuu dhammaan doono 10 cisho ee soo socota hirgelinta arrintaas ma ahayn mid sahlan siyaasad ahaan iyo maamul ahaanba laakiinse waxa ay tahay oo ahaan doontaa muhiimadaha iyaga koobaad maxaa yeelay xukuumaddani waxyaabaha ay u danaynayso ugana shaqaynayso soo kabashada dhaqaale ku imaan mayso haddii ay meesha ka maqan yihiin hay-adaha caalamiga ah ee ku shaqeeya dhaqaalaha waxaa higsigu yahay inaan yareyno saboolnimada 2% sanad kasta inaan abuurno shaqooyin inaan diyaarino fursado maalgashi ee dhanka beeraha xoolaha iyo kalluunka
waxay noqonaysaa dhib haddii uu meesha ka maqan yahay qorshaha dowladda ee horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha laakiin waxaan ogsoonahay inaan awoodi karin dib u hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha ilaa culayska deymaha dalka lagu leeyahay laga khafiifiyo maxaa yeelay si loo dhiso kaabayaashan waxay u baahan tahay in maalgashiga caalamka aan furno haddii si kale aan u dhigo haddii aynaan samaysan karin wadooyinkeenna si ganacsatadeenna yaryar ee beeralayda xoola dhaqatada iyo kalluumaysatadu ay wax soo saarkooda u kaydsan karin suuqyadeenna markaas waxaa sii adkaanaysaa hadafkii aan ka lahayn inaan yarayno saboolnimada waana sababta aan u aasaasnay golo qaran oo dhaqaale si looga faalloodo loona adkeeyo maslaxadeenna dhaqaale iyo muhiimadda ay siinayso xukuumadda federaalka ah waa gole usoo dharaandhiriya golaha wasiirada caqabadaha iyo fursadaha dhaqaale ee haysta shacabka Soomaaliyeed iyo sida ugu fudud ee looga faa'iideysan karo mudanayaal iyo marwooyin arrinta la xiriirta shaqaalaysiinta dhalinyarada taasi waa mid waajib nagu ah ma ahan oo kaliya in dalka horumarkiisu ay ku xiran tahay balse in aan sidoo kale uga hortagno xagjirnimada waxaan u baahannahay inaan shaqooyin abuurno si aan u soo jiidano qurba joogta si aan uga badbaadino dhalinyaradeenna aqoon-yahanada ah inaanay nolol u raadsan wadamo kale annagoo kaashanayna dowladaha aan saaxiibada nahay waxaan ilaa iyo hadda abuurnay shaqo 5,000 oo dhalinyaro ah kuwaasoo jooga dalka qaybihiisa kala duwan waxaanu higsanaynaa inaan abuurno 20,000 oo shaqo dhammaadka sanadka soo socda waxaan qaban doonaa intaa wax ka badan si aan dhalinyaradeenna uga baajino inay dalal shisheeye aadaan tani waa tusaale ka mid ah higsiga iyaga aasaasiga ah si aan dalka ugu soo jiidno maalgashi ka yimaada caalamka waan dareensanahay in dowladaha caalamka ee aan saaxiibada nahay aanay isku biimeynin maalgashi Soomaaliya balse waxaan idinkaga fadhinaa inaad naga sugtaan fulinta dhanka iyaga waxyaabaha aan ku heshiino kaasina waa mabda isla xisaabtan wadaaga ah ee aan aaminsanahay we need jobs to retain and returning the diaspora and we need jobs to stop our brightest and more ambitious young people leaving to seek a better life elsewhere. Together with assistance of our international partners, we have created jobs for 5,000 youth across the country and are aiming for further 20,000 in the coming year. However, we must still do to retain our young people. The initiative is a primary example of the way we wish to see our international partners engaging with us. We understand that we ask of international partners is to take risk and invest in Somalia, but equally, we ask you to hold us to task to what we agree on our part. This is the principle of our mutual accountability. Your Excellency, ladies and gentlemen, on the security front, mudanayaal iyo marwooyin haddii aan amniga ka hadla mudanayaashii shalay nala joogay shirkii ammaanka waxaad maqasheen sida aan wax uga qabanay ammaanka iyo waxyaabaha nooga hirgalay dhisitaanka amniga qaranka annagoo qiimeynayna howlgallada ciidamada qalabka sida iyo kuwa booliiska iyo horumarinta qorshayaasha iyo istiraatiijiyadaha aan ku bixin doono mushaarka ciidamada habkootooyin u gaara iyo abuuritaanka ciidamo isku dhafa oo ka shaqeeya amniga caasimadda waxaan idin xaqiijinaynaa inaan sameynay waxyaabahaas oo dhan annagoo aaminsan ka dowlad ahaan inaan qaban karnay iyo taageerada aan la garab istaagnaydeen dowladaha aan saaxiibada nahay haddii aanan qabaneyn waxay noqon lahayd dib u dhac kale isla xisaabtanku wuxuu ka bilaabanayaa annaga shacabka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay nala xisaabtamaan heer federaal iyo mid dowlad goboleedba waxaan ka shaqayn doonaa inaan xaqiijino siyaasadaha nooga degan arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo amniga si shacabku u gutaan nolol maalmeedkooda si wanaagsan si aan u fulino howlaha iyo ajendayaashan hor yaala sida ugu dhaqsiyada badan waxaan beesha caalamka uga baahannahay inaad na garab istaagtaan oo aadna aamintaan inaan hawshaas fulin karno annaguna waxaan diyaar u nahay si ixtiraam ku jiro inaan isla wada xisaabtano as means to remedy the daily struggle, be it socially, economically, and security-wise. Implementing quickly the agenda we have articulated to the Somali nation requires the assistance of international community. We ask you to take a leap of faith in us. We stand ready with open arms,
for a platform of mutual respect and accountability, but above all, balse intaasoo dhan ka hor waxaan idin leenahay barnaamij kasta oo aan fulin doono micnaheedu waan fulinaynaa waaye waa idin mahadcelinayaa